غوغان عيد عدوى هدن عطها قبيش وعليل دينو وروين كومانو عدو هيرا ليسي علنك واهبو شرفوها غوغان عيد عدوى هدن عطها قبيش وعليل دينو وروين كومانو عدو هيرا ليسي waxaad ku leedahay kuwa jooga oo ku haminaya kuwa hadda jooga oo ku haminaya inay dal shisheeye dhaqankiisa raadsadaan ama ay wax ay moodayaan inaysan dalkooda oo ay dal kale u raadsadaan waxaan leeyahay walaalayaal nimansada dalkiina hodana idin baahan barwaaqa gaarsiiya kuwa kale oo aad moodaysaan inay dalkiina ka fiican yihiin kama fiicnee wiilal idin la mida baa gaarsiiya heerka dalkooda marka idinkuna dalkiina halkaas kala gaarsiiya si biri ka maalin idinka idinku soo dalxiistawa inaas aan warkay ku soo koobay in ka badan hadeer maskaxda kuma jiro waa mahadsantihiin معان ومدان هوي لقا هوراني ليون عنتي معان ومدان هوي لقا هوراني ليون عنتي معان ومدان هوي لقا هوراني ليون عنتي معان ومدان هوي لقا هوراني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan horta ugu faraxsanahay inaan maanta imaado dooxada Janteela oo ah goob runtii aan u nimaanay dalxiis iyo booqasho taasoo runtii ka turjumaysa in aan dhaqankii horeeto ee Soomaalidu lahayd iyo runtii aqal Soomaaligii qolkan oo ah qolkii loogu talagalay martida ama meeshii loogu talagalay inuu waxaan raanaadee magaalada fadhigi marka maanta sharaf gaar ah ay tahay inaan waxa weeye aan soo booqdo iyadoo aysan ahayn markii koowaad oo aan imaado goob baadiye ah balse ay maanta xasuus gaar ah tahay inaan la socdo saaxiibo badan Cabdirasaaq iyo tiimkiisa waxa weeye oo aan maanta waliba nagu hogaaminayo waxa weeye dalxiis aan jecelnahay inuu noqdo mid taariikhiya oo aan runtii aad iyo aad noogu faraxsanahay waxay tani ka turjumaysaa inaan haddeenahay Soomaali ay nahay dhaqankooda asalka u yaalo miyiga iyadoo hadda moodid inay rag waxa weeye ama dadku ay ka soo macnaha magaalada u soo carareen ama abaar ha keento ama ha keento siyaabo kala duwan oo ay ka mid tahay in ay dadkii magaaladii jeclaysanayaan
xaqiiqatan halkan waxay muujinaysaa inay tahay halka dhaqankeenu yaalla xagga awoyaasheen dadkeennii wax aan mataqaanaa lagu tilmaami karo ay tahay dad walba waxay leeyihiin asalkeenu wuxuu yaallaa waa goobta tan baadiyaha iyo meel la mid ah marka runtii farxad gaara bay tahay aniga waqtiga ugu badan ku qaatay magaalo ku qaatay dal shisheeye jaamacad uga soo baxay meelo fogfog inaan maanta joogo meel waxa weeye lagu tilmaami karo halka Soomaali dhaqankeedu yaallo wax walba aad bay farxad igu tahay ma dheereenayo waqti badan waa isla arki doonaa laakiin waxaan ku soo dhaweynayaa walaalisna soo kelmadiisa uga dhaho soo dhawo bismillahir rahmaanir rahiim ku dhawahay maanta waxaan joognaa Chantela abduleedka magaalada Garowe saa u jeedaaba waxay ag yaalla gaawihii oo ah mid cusub kii martida lagu siin jiray dhaameel baa la yiraahdaa macnaha martida waxa lagu siiyaa caanaha qolkan ku jirnayna waxa weeye qolkii fadhi carbeedkii waxa weeye dee dadka magaalada jooga qolkan oo kale fadhi u yahay qolka fadhiga iyo martida iyo baa la geeyaa waa kana qolka fadhiga hadda waa fadhinaa waa alaabta fadhiga waa kana astaayadii hidii dhaqankii dhabta ahaa waxa weeye alaabtii talaagada biyaha laga soo saariyay iyo cabitaanka iyo waxa iyo waatana halkan ay taala si kastaba ha noqotay dee raggan waa rag cabdisaaq iyo rag qurbaha iyo meelaha soo marmarayo meelo badan waxa weeye soo marmaray laakiin anigu waddanka tabtii baan u joogaa alle ilaahay weligay bixitaan waan u malayn maayo Garowe inaan meel uga baxay gaarkacay iyo maaneed iyo meelahaasi baadiyaashaas waxa weeye dee dhaqankii guli tabtii baan u hayaayo u kala garanayaa casharo badanna dee inaan waxyaalahan ka siin doono waan u malaynayaa maadaama baadiyihii aan kaga dambeeyo baadiyihii dhaqankii waxa aan garanayo kan haddaan hadda faahfaahin yar bilaabo kan waxa weeye magaalada kanoo kale wuxuu ka yahay talaagadi wax lagu kaydin lahaa iyo alaabta yartaheeda lagu soo qaadi lahaa biyaha iyo cabitaanka qabowga iyo macnaha alaab qaali iyo dhalaalaya qof wax lagu keenaa jira martida waa tan halkaan taala wili waxbaa dhimano oo ku soconaa baadiyaha intaan hordhac bay noo noqonaysaa safarkaygii ugu dambeeyana noqon maayo aan u soo baxnay insha Allah safar badan baa qorsheynaa kan ka balaaran aan dalxiiska iyo hidii dhaqankii aan ku soo muujinayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركي قوريسي أقل صومالي سوقلو لكن وكم مغلق جري مقرر مساي أوي وكم مغلق جري أبي يدور مجلس سالونسا وانا داودي مقرتي لكن ومركي قوريسي أنا أقل صومالي سوقلو أنا حرصدو ولي بس إذا بدأت على وديس مقرتي مركا آدي آد بانو فرحسنا تاس تيم كيجي يدمان لبح كبير استوديو ومعتنية ومارتي حتى أنا كاميرا دي حيو أدو ما صدق صاحب أخويا يعني أنت سوق كبير وركيجي
waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo hantiyey macaan waa midaan hoy laga odhane helayo 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 baraf maleedhkeenu inaga halayne soomaaliye hoy odaale weeyaan deegaankiisa hodanka loo wada hamuume anfi iyo kulayliyo baraf maleedhkeenu inaga halayne soomaaliye hoy odaale weeyaan deegaankiisa hodanka loo wada hamuume haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo hantiyey macaan waa midaan hoy laga odhane helayo hantiyey macaan waa midaan hoy laga odhane helayo
calankaag waa hibo sharafkugu hagoogaane ciidaad waa hodan cabkuha qabeeshe waa haleeladiino horweyn ku imaano cadku hiiranayse calankaag waa hibo sharafkugu hagoogaane ciidaad waa hodan cabkuha qabeeshe waa haleeladiino horweyn ku imaano cadku hiiranayse haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo hantiyey macaan waa midaan hoy laga odhan